ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waa idin salaamaya si kal iyo laab iyo niyad iyo qalbi fayow ah ayaan idin salaamaya magacaygu waa Igre Yaasiin Xaaji waxaan idinku salaamayaa salaan la isku salaamo mid ugu qaalisan oo ah salaanta muslimka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan halkan ku soo gudbiyo gabay kooban oo wadaniya oo ka sheekaynaya nimcada barwaaqada khayraadka ilaahay wadankeena uu ku manaystay ugu deeqay wadamo badan oo adduunka kamid aysan haysan sida xoolaha saddexda meesiya caanaha macaan sida geela iyo ariga beeraha hadii beedmaya badda khayraadka ku jiray aadka u faraha badan la isku haystay dad badan oo fara badan oo ama dawlado fara badan oo cadow ku ah gayiga Soomaaliyeed ay isku haystaan meel kasta waa joogeen dadkeenuna intaas oo nimca iyo barwaaqo iyo khayraad ay Ilaahay u siiyay aad ogtiin in adduunka meel kasta aynu joogno inaan qaxoonti ku nahay warafaad iyo silic iyo baaba iyo dagaal iyo qaxoonti iyo kufsi iyo isnaacayb iyo isku dir iyo isdil iyo intaas oo kun ka sii daran oo dadkeena la isu mariyay hor la isu mariyo midna uu sameyska kala arki karino siyaasi xuno lagu adeegto oo ducfa oo isu mariyay ummadeena Soomaaliyeed walaalaha shacabka Soomaaliyeed oo isku diray isu mariyay hor iyo waxyaabo adigu hadii bad xumaanaho aan wanaag ku jirino dadkii Soomaaliyeed isu soori jiray kala xishoon jiray magaca iyo maamuuska Soomaaliyeed la sireeyay waxaan filaynaa inay hadda marayso reehebel iyo reehebel gobolkee ka soo jeeda dawladda waa maamulkee iyo sheekooyin yar oo gaagaaban halkaan waxa geeyay siyaasi Soomaaliyeed oo dad sheeyay adeegsanayaan gabaygan waa gabay cusub wuxuu ku soo beegmaya iyadoo berri ummadda Soomaaliyeed ay Soomaaliya ka jooga iyo ka maqanba ay Muqdisho eegayaan waxa ka imaan doona waxaynu ognahay koox siyaasiyiin sheegtay oo jagada ugu sarreysay ee dalka ee madaxweynaha u sharaxan inay toddobaadkii tagay inuu daaweynay faankooda iyo qararaacdooda iyo waxaan samayn lahaa iyo badda rija ag marin lahaa iyo xajkan idin kaxayn lahaa iyo meelhamlaan idin geyn lahaa iyo sheekaraaca faankooda anigu kale midna ma taageersanay siyaasiyiinta hadlayay iyo kuwa aamusan midna ma taageersan anigu siyaasi ducfo xuna Soomaaliyeed oo qaxoontiga ay badayo rafaadka baday shacabka Soomaaliyeed oo tahriibta igu kalifayo dhibaatada iyo mucjisada kalifay aan maanayade intaanu ka aaminsanahay inaan horumar iyo dadnimo iyo damiir midna aynan horumar ka gaari doonin waxaan filayaa kooxdan xildhibaanada sheegatay ee Soomaaliya Muqdisho jooga inay bari laga sooyay bal qofka inay hor keenaan gabaygu markaa wuxuu ka sheekaynaya nimcada iyo khayraadka aan idin sheegay magaciisa hadaan markaa idin ku celiyo waxa la dhahaa hal irmaan sidoo kale wuxuu ku soo gabagaboobayaa inuu Ilaahayna siiyo hoggaan muwaadina diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa jecel oo damiirka ka nool oo gacan kale aan ku jirin oo aan lagu adeegin Ilaahay baan ka baryanaa taas gabayga dib ay kaga jirtaa ducadaas ku soo gabagaboobaya waxaan ku bilaabmayaa sida tan la qabsi wanaagsan hal irmaan haleelada murkaha laga hifsiinayo saca haysha dheer iyo dibiga higilka weyn yeeshay adigoo hareeraha guryaha qabla daaqaya caanaha harkii aadanto haanta laga buuxsho inkastoo halow dhimay ku dhacay hodankii maalkeena misana heelka waa lagu hayaa hirashadoodii hilibkii damaanka guryaha laguba haystaaye hilinkii carbeed baa ku furan loo halwadiyaaye dhalinyarada hurudaan arkayn kuna hiloobayne horar caydha anigoo baan debed hayaamaaye hirarkii badaydaan ka qaday hodantidoodii hanaad caydha waxa igu wacan wahabka aan ahaye wabigoo haraaca haddana haqay dhalaankii beeraha harkoodaan u aalhoogay iyo ciile dunidoo ihiiftaan baryada gacanta hoorshaye cirkoo hilaacaan haraad hogortamayaaye haqablii dhulkayga baan haayir geliyaaye gaajada habeenuma lahayn heertay sabadii hamuun aan go'ayn baa niyada hurudda waa noole hindisaha waxa iigu dhacay higso meel kale hududuunkan Ilaahay badinayaan hindanayaa waa tahriibte hududuunkan Ilaahay badinayaan hindanayaa heeryada saboolkan huwaday kuna huleelaaye haabtay baahida anoo hoyga buuxsade hab waxaan la dhacayaa anoo helaya aagaane hungadaan ku raystaa anoo hoos ka soo kacay hir caleena anigoo arkaan omoska haybshaaye holac baan u boodaa anoo haysta raaxade gaajada habeenuma lahayn heertay sabadii hamuun aan go'ayn baa niyada hurudda waa noole hamuun aan go'ayn baa niyada hurudda waa noole hindisihii waxa igu dhacay higso meel kale eebow hoggaan daacad oo hadhaca noo waaba
eebow qaxoontiga habqamay wiilka hira diifta eebow habeen mid u lahaa talada hanashadeeda eebow ducada hooriyay haygu qadin doorkan eebow dalkoodana ku hay harada noo buuxi eebow midnimada hadh leh lagu hoga gooyo eebow midnimada hadh leh lagu hoga gooyo eebow qabyaaladii hore ahooga nagu reebtay eebow Soomaalida ka habee heel kastaba aaday